Soomaaliya si ay dowlad u noqoto in ciidan xoog leh iyo isla xisaabtan loo sameeyo. Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliya isaga madaxweyne ka ah. Waad ogeydeen Kenya markii la isku dhacay iyo dowladda Soomaaliya isku dhaceen inuu Kenya la saftay. walaac iyo cabsi aanay ka qabin Ethiopia iyo Kenya inay Soomaaliya soo laabato mid ka daran buu Ismaaciil ka qabaa. ninka kugu sheekeeya marka Ismaaciil waa walaal waa cadow ama waa doqon xugmoog ah ama waa jaajuus isaga u karaysan. waxaan rabaa da'yarta Soomaalida inaan u sheego hadduu Ismaaciil walaal yahay 30 sano ganjeel ku haya Hargeysa wuxuu u sheegi lahaa inaanay dowladnimadu sidan ahayn, inaanay cid aqoonsanaysaa jirin, Soomaaliya inaanay kala go'ayn. wuxuu odhan lahaa wadahadalladan ka faa'iidaysta oo maadaama xamar ay qasan tahay oo degi weyday qaata caasimadda oo qaata madaxweynaha oo dowladnimada aqbala oo waqtiga ha iska luminina. laakiin wuxuu ka ilaaliyey inaan la heshiin shirkii ugu dambeeyey ee lagu qabanayay Djibouti ee wax kasta laga heshiiyey ee madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii ay isugu tageen Djibouti oo nimanka la yidhi madaxweynahana qaata caasimadana qaata oo ay aqbaleen oo saxiixa meesha loo yimi adna iyo wuxuu adeegsaday Salebaan Gaal. waa maalinta aan weligay xil rajo ka yeeshay nin la yidhahdo Liban Lacdaala ayaa wuxuu soo geliyey in la heshiiyey oo dee heshiiskaas horaa loo ogaayo wax badan baa la isla meeldhigay. wuxuu soo geliyey in la heshiiyey caasimaddu Hargeysa tahay Muuse Biixi madaxweynaha yahay dalkii la israacay. maalin sanaa la labanan askari doontaayoo aan ilaada madaxweynaha ka mid noqdaa si aan uga ilaaliyo nimankaa koonfurka iyo madaxweynaha. Ismaaciil Cumar Geelle waa cadow. cadowga Soomaaliya qura maaha, Djibouti waxay ku jiraan xabsi hawada u furan. ninkaas kaas wey ha ogaato Soomaalidu. qodobka labaad waxaa jira nin la yidhahdo Jaamac Shabeel. Jaamac Shabeel waa nin macruuf ah wada garanaysaan. Jaamac Shabeel waxaan arkayay nin buuhoodla ku waraysanaya oo leh halgankaa isgarab taagtay. Jaamac Shabeel halgankan isma garab taagin waxana kuma darsan, laakiin Jaamac Shabeel waa nooca dadka Soomaalida ah ku sii yar. waa dadka yaqaana Soomaalida dhaqankeeda, colaadaha sokeeyaha waxa ka dhalan karana garanaya, dulmiga iyo gardarrada dadka Soomaaliyeed iskula kacaana ciribtiisa yaqaana. intaa unbuu ninkaas ka faallooday. wuxuu sheegay dagaalka laascanood lagu qaado inuu gardarro yahay, guulna aan lagala imanayn, guri kasta oo Hargeysa iyo Burcana laga ooyi doono. sidaa maalintu u hadlayo 4 nin oo habar jeclaaba hadlay. waxay yidhahdeen mataqaanin waxay yidhaahdeen dastuurkuu khiyaanay waa qaynal waddan, waa in lasoo qabtaa, waa in la xidhaa. calanka tawxiid kale buu doonayaa in lasoo laalaabo, waa in lasoo qabtaa. habar jeclo wax badan baan ka sheekeeyey. waxa Jaamac Shabeel oo Hargeysa degan iyo shishadeeda uu gartay ayaa nimankaasi garan waayeen. adiyadda iyo daandaansigii waa ku daganteen, dulli baa ka dheefteen, waxaa dhagara duugteen. dibindaabyadiinnii wataas aad dambariseen, dulmigaad falayseen sidii roob soo da'ay. dhulkii lama degaan buu noqda waa ka dalowdeen, waa kaa dariiqii furnaa dama la buuxsheen. waxaad degan lahaydeen dhammaan ciidamaa degi, burcaa laga dareemaa cabsida waana durugteen. waxsaan ahay nin diin leh oo rabbigii daalacanay ah, anaan digin anaan idinla doodaynin. waxaan idin dareensanayaa shay dardaaran ah. war maantana waxaa doorataan waanu daabici, diiwaanka taariikhda waa idin dul yaallaa. maantana waxaa doorataan waanu daabici.
in jaamac shabeel roog cas loo dhigo oo lagu soo dhaweeyo buuhoodle in laascaanood laga sugayo oo soo dhaweyntiisa la sugi layahay ma aha macruuf uu u sameeyey halgankii meesha ka soconaya waxaa lagu abaalmarinayaa wanaaggii iyo ra'yigii iyo taladii iyo garashadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo uu ku odorosay wixii dhacay intaasoo looga mahad celinayaa hal jazaa'u alixsaan ila alixsaan abaalmarinta wanaaggu waa un wanaag ceebtani ma dhacdeen kumaankunka wiil oo dhintay ma dhinteen wuxuu yidhi nin aqoon-yahan ahoo qurbaha igala hadlay hadduu jaamac shabeel oo kale meeshaa ka talin lahaa gobolladaa mar horaa la liqi lahaa war xuduudda mahooyadiin baa la buyidhi miyaan degdeganayn xuduud wiilala yaryar oo 30 jira ah oo beenta la fila xuduudda war xuduudda mahooyadiin baa la buyidhi miyaan degdeganayn dadku miyaanay xaq u lahayn in wax la weydiiyo goormaan lays addoonsan jiray waxaan rabaa reer waqooyi barinan ku dhahdo jaamac shabeel ha la soo dhaweeyo inta qof bin aadana la karaameeyo oo la soo dhaweyn karo ha la soo dhaweeyo habar jalna waxaan rabaa inaan ka dhahdo siyaasigiinna iyo qaaqlihiinna iyo isimkiinnu waa isku aragti waana isku cod taariikhda wax ka barta inta nin ee habar jecla ah ee hadla ee la diiwaan geliyey ama isagaa la dhalay ama aabihiisaa la dhalay bal colaaddii nimankaas ay huriyeen oo ay garan waayeen war waxa aad degan tihiin waa waddaad degan tihiin wuxuu yidhi nin ganacsada reer burco ahay intaanu noolayn hal kartoon iyo hal kiish galbeedu ma aanan qaadin bari baanu u qaadi jirnay buu yidhi inay gartaan bay ahayd dhulku intuu nabadda ahaa jaamac shabeel ha la soo dhaweeyo hana lagu abaalmariyo wanaaggii uu ka sameeyey inuu odoroso sida ay waxu dhacayaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala u waafajiyey laakiin halgan buu qayb ka qaatay jaamac shabeel nin halgan qayb ka qaatay maaha jaamac shabeel nin warramo maaha jaamac shabeel waxa ay ku sifaynayaan wax magaratada hadda habar jeclada u badani waxba kama jiraan wey caqligooda iyo garashadooda halkaa dhigtay inay naf ku waayaan oo maal ku waayaan oo nabad ku waayaan oo sumcad ku waayaan oo deris ku waayaan oo qaraabo ku waayaan hargeysa ninkii ka yimina buuhooda rooga cas loo dhigayo lascanoodna u yaallo garashada habar jeclaa gidaysiisay halkaas qodobka intaasna ka oranaya waxaan rabaa inaan u imaado qodobka saddexaad waa sheekh cali wajiis sheekh cali wajiis aad baan u ixtiraamayaa nin la yidhahdo deni buu ku tuntay oo madaxweynaha puntland ah oo aan waxba la noolayn deni waxba lama noola sheekh cabdi xirsi iyo aniga 24 saac qoorta cad kaga hayna ballantuna waxay ahayd oo aan sheekh cabdi xirsi culimada iyo qabaayilka Soomaalidaba uu tusaale ugu ahaa inuu tuuga gobolkiisa iyo khaayinal wadanka inaadeerkiisa qabto sheekh cali wajiis hadda ka horna waxaan dhageystay isagoo farmaajo leh farmaajo waxaan u sheegay inuu sheekh shariif soo dhaqaajinayo ciidamada labada shabeelle sheekh cali wajiis waxaan rabaa inaan u sheego dalka Soomaaliya waxaa madaxweyne ka Xasan Sheekh deni waa gabarnador weeye waa guddoomiye gobol waan ognahay dhibaatada waddanka ka jirta laakiin ninka maanta waddanka sharaftiisa qalin ku ilaalin kara codkiisuna uu soconayo diyaarad uusan ogolaanina aanay soo degi karin xasan wey ma awoodaa inta uu cabdi xirsi deni ku leeyahay ama nimankan siyaasiyiinta ah ee maxamuud saleebaan ama puntland ku leeyahay inaan ku tiraahdid jawaasiista abgaal ama hawiye unukaal group 91 team ma awoodaa inta kaa khusaysa Soomaalinimada iyo dowladnimada
oo aan nimanka xamar nabadda iyo nolosha u diiday oo muuse suudi baa waxaa la yidhi maxamedow soo bax maxamedow soo bax what happened baa la yidhi muuse maxaa dhacay maxaa ku nacday ninkan 4 sano ninkani joogay wuxuu yidhi madaxtooyada shaah kama cabbin ma aag marin buu yidhi 4 sano meeshan jooga awalna jimce kasta maha waa tegi jiray waa soo baaran jiray buu marka sheekh cali waxaan rabaa inaan ku idhaahdo ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qoltum facdilu deni waxaa haysta dad aan waxba u reebanayn oo dadka reer puntlandna tusaya inuu dibindaabyo ku yahay dowladnimada iyo midnimada iyo qarannimada ma awoodaa shariif inaad tustid inuu nabar ku yahay dowladnimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ma awoodaa xasan inaad ku tidhaahdid war nin baa ilaahay kaa dhigaya dalkan adaa madaxweyne ka ah waddankan aad leedahay magacaabi maayo waa imaaraadke war waddankan dalka ka saar oo xidhiirka u jar ma awoodaa sheekh cali waxaan leeyahay deni uma baahna in xamar laga soo shiido shiidku garowuu kaga socdaayo boosaasuu kaga socdaayo qardhuu kaga socdaa laakiin nimanka shiidka u baahan ee xamar kula jooga wax ka qabo shiikha ku dheeraan ma intasanunaya finally waxaan rabaa farmaajo ninka la idhaaho oo la yidhi wuxuu ku soo socdaa muqdisho oo la yidhi waxa u gogol xaadhaya golaha hagardaamada iyo halaaga soomaaliya oo deni iyo axmed madoobe iyo shariif ay madaxda ka yihiin mar horena farmaajo waa u digay oo waxaan u sheegay hadduu rabo dadka soomaaliyeed farmaajo still way jecel yihiin 2 qodob baa lagu jecel yahay farmaajo waxaa lagu jecel yahay inuu yahay shakhsi daacad ah waddankana aan ka doonayn inuu ama cadow ka iibiyo ama isagoo u xaraashto qodobka labaad waa nin doonaya ummadda sharafteedu inay sarrayso haddii labadaas ay yihiin waxa ummadda soomaaliyeed ay ka rajaynaysa farmaajo maba garanaya anigu siduu muqdisho intuu ugu soo noqdo ilaa nimankii baa jooga unukaaleba ilan jooga maba garanaye laakiin waxaan rabaan u sheego hadday dhab tahay oo aad soo socotid oo uu kugu jiro damac siyaasadeed iyo hoggaaminta waddanka mar kale nimankaa la yidhaahdo golaha hagardaamada oo dhammaantood ah dad u raran shisheeye waxbaha ku darsan qabiil kastoo soomaaliyeed waxaa ka buuxa siyaasiyiin waayeela ama dhallinyaro ah ama dhexdhexaada oo nadiif ah dadaan ummadda soomaaliyeed wejigooda ka dhiman dadaan la aqoon oo aan aad loo baran dadaan axmed madoobe ahayn oo aan deni ahayn oo aan ina mako ahayn oo aan shariif ahayn oo aan khayre ahayn oo aan rooble ahayn oo aan ahayn qashinkan dhanna u diiday waddanku inuu dhaqaaqo xulo oo wax ku darso waad helaysaa laakiin kuwaas oo aad garanaysid kuwa ay yihiin kuwaas oo adiga iyo ummadda soomaaliyeed baan ku cusbayn waxbaha ku darsan finally qodobaan ilaaway baa jira oo nin la yidhahdo youtuber ah xuseen jaamac kilibuu kaga hadlaya waqooyi bari baa laysoo diray dhowr joor baa laysoo diray xuseen jaamac waa nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo shaqo fiican runtii u haya bulshada soomaaliyeed laakiin waxaanu ka sinayn baa jira waxaanu ka sinayn waxa weeye inaanu mucaarad ku nahay xasan sheekh xuseen waxaad moodaa inay la fogaatay mucaaradnimada xasan sheekh walow aan nin waayeela ahay duruus baan istiil qaataa sheekh cabdi xirsi baan waxaan ku khilaafsanaa inuu taageero xasan laakiin wuxuu yidhi sheekhu war qofku markuu wax wanaagsan sameeyo wuxuu mudan yahay in la yidhahdo waad mahadsan tahay wixii khalad oo sameeyana lagaga hor yimaado xuseen waxaan rabaa inaan u sheego haddaad garanaysid qiimaha ay ummadda soomaaliyeed u leedahay waqooyi bari haddaad garanaysid qiimaha loo bixiyey ee naf iyo maalbale aa xasuusan tahay
haddaad garanaysid waddanka meesha laga soo celiyey iyo kala goynta ay ku waday gooni ugoosatada iyo shisheeyo haddaad og tahay xasan sheekh iyo xamse riskiga ay qaateen oo ay u badheedheen inay shisheeye iyo sokeeyaba ganafka ku dhuftaan oo gacanta intay wejiga kaga dhuftaan ay yimaadaan laascaanood oo kaga dhawaaqaan dowladdaas si waddanka loo badbaadiyo akhriskaagu inta aanu dhaaftay baan mooday waxaa sheegtay inay axmed madoobe iyo deni iyo xasan sheekh heshiinayaan hadday heshiiyaan oo ay gacmaha isqabsadaan maxaa uga ba'aya waqooyi bari marka xuseen waxaan odhanayaa waxaa wanaagsan inaad ka hadashid waxa aad garanaysid oo aad aqoonta u leedahay waxaana kugula talin lahaa arrimahan daakhilka ee Soomaaliya waad ka weyn tahay ha ka hadlin ama deni ha heshiiyo ama ciro ha heshiiyo ama xasan ha heshiiyo waqooyi bari halka maanta ay soo gaadhay cidna kama aanay bari ilaahay subxaanahu wa tacaala bayna uga baahan tahay waxayna uga baahan tahay inay iyagu gacmaha isqabsadaan oo ay midoobaan iyagu inaana isjabin waqooyi bari looga biqi maayo ilaa intii calaf la